ciidamada difaaca dowladda Puntland ee BSF ayaa howlgal gaar ah ay ka sameeyeen tuulada Marajo iyo deegaanada buuraleyda ee hoostaga sida Boojo iyo Habar Hagoogane ayaa waxa ay ku soo qabteen xubno ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo uu ku jiro horjoogo sare oo kooxdan ka tirsan. xubnahan Al-Shabaab ee ciidamada BSF gacanta ku soo dhigeen ayaa ah kuwa maleega ee dhiga qaraxyada iyo miinooyinka la geliyo wadada isku xirta tuulada Karin iyo magaalada Galgala. intii uu howlgalkan socday ayaa waxay sidoo kale ciidamada BSF gacanta ku soo dhigeen dhowr kiilo oo ah budada maadada TNT-da iyo waxyaalo kale oo ay Al-Shabaab u adeegsadaan samaynta qaraxyada ay geliyaan wadada isku xirta Karin, Balle Khadar iyo Galgala oo ay saldhigyo ku leeyihiin ciidamada difaaca dowladda Puntland. howlgallada joogtada ah ee ciidamada BSF ka wadaan buuraha Calmadow ee gobolka Bari. howlgallada joogtada ah ee ciidamada difaaca dowladda Puntland ee BSF ay ka wadaan buuraha Calmadow ayaa qayb ka ah qorshe ballaaran oo ay ciidamada dowladda Puntland kaga sifaynayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada iyo degmooyinka dhaca Puntland. Maxamuud Jamaal Maxamuud oo telefishinka iyo raadiyaha dowladda.